محمد علي أمريكا سفير كهرباء دولة فدرالك الصومالي وفدي دالك كينيا oo inna waanahan booqasho taariikhi ah ku maray gobollo fara badan oo kamid ah dalkeena ayaa waxa uu ka hadlay socdaalka uu ku maray deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobollada dalkeena iyo sidoo kale soo dhaweynaha uu kala kulmay maamulada ka jira gobollada dalka qaarkood safiirka oo waraysi dhinacyo fara badan taabanayay TV-ga Somali News ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay sida maamulada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ay u soo dhaweeyeen booqashooyinkii uu ugu tagay deegaanadooda sidoo kale waxa uu mahadnaqay maamulada degmooyinka Matabaan, Guriceel, Balcad iyo sidoo kale Warshiiq waxaana uu ka hadlay arrin ay la yaabeen inta badan bulshada Soomaaliyeed qaarkood inta samaha jecel arrintii uu sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Fataax Xasan Afrax taasi oo uu u diiday safiirka inuu galo gobolka waxa uu ku amray safiirka iyo wafdi ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo marayay degmada Matabaan kuna sii jeeday magaalada madaxda gobolka Hiiraan in safiirku uu telefoon u soo diray maamulka gobolka ku sameeyashooda uu ku amray in safiirkii hore ee dowladda Soomaaliya aanu gudaha u soo galin Beledweyne isagoo arrimahaasi ka hadlay safiirku waxa uu sheegay intaasi ay tahay wax aad looga xumaado uuna sheegay inuu xaq u leeyahay in uu maxkamadda la tiigsado maadaama uu yahay muwaadin xaqna u leh inuu booqdo degmo kasta oo kamid ah dalkiisa aan jirin shakhsiyaad ka hor istaagi kara kormeerka uu ku marayo gobolka aan ka tagay Guriceel waxaan tagay Matabaan ruwaaye waan rabay inaan tago maamulkana ma aha waa hal nin waaye waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Cabdi Fataax ayaa Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax ayaa diiday waxa aniga soo dhaweeyay oo mataqaana Matabaan igu yimid kusimaha gudoomiyaha Salaad iyo duqa magaalada Beledweyne iyo odayaal kale si fiican soo dhaweeyeen marka ma la dhihi karo maamulka waaye dadka reer Hiiraanna hadda arrintaas laga tacsiyeen xildhibaanada laga tacsiyeen waa arrin laga fulxumaado waaye aniga shaqsi baan ahay Soomaaliyeed oo mataqaana xaq u leh in aan mataqaana tago meel kasta oo ka tirsan Soomaaliya dastuurka ayaa dhigaya qof Soomaaliya la celin kara ma laha arrintaasna waa arrin aad loogu xumaado laakiin waxaan inaan hoos ka xariiqo in reer Hiiraan odayaashooda ururka haweenka dhalinyarada mataqaana xildhibaanada kulli ay ku xumaadeen arrintaas إن شاء الله تعالى أنا وأنا أتجه هنا إن شاء الله تعالى مرة. لكن مش ويدي شيء قدوميها قبل سببها وكذا مقالدي أبو قطع قبل كي أكتر. ولا واحد رأي أبوه إيه أسأله ودينا يا ما تخانا أنا جانا أردت وأساس وما هرايو وحال لها وأن دعوون دونا حقي وحقول لي هاي ودستور كودنا كإلي إن لجوه تاجو وح لقبل كرما من اللي يلاقي. sidoo kale safiirka ayaa waxa uu ku amaanay nabadda ka jirta magaalooyinka iyo gobolada dalka uu soo maray waxaana uu ku booriyay maamulada halkaasi ka jira iyo shacabkooda inay sii wada shaqeeyaan ayna ka shaqeeyaan nabadgelyada dalka waxa uu sheegay in booqashooyinka uu ku maray gobolada dalka ay uga soo laabatay feedback wanaagsan waxa uu sheegay in uu arkay dad aanay aaminsaneen in dalka uu nabad yahay laakiin ku dhiiraday ama damacsan xilligan in dalkooda hooyo ay ku soo laawdaan kadib markii ay arkeen nabadda iyo sidoo kale horumarada wanaagsan ee dalka iminka ka socda Idruus Maxamuud Imaan Somali News TV Muqdisho